marka iimaanku waa asaaskii de cilmiguna isaguna waxa weeye qowlka iyo camalka ama camalka ha noqdo camal qalbi ama camal jawaarix ha noqdee intaba isagaa maaragtay u ah asaas u ah leanna camalku niyo u baahan yahay niyaduna waxay u baahan tahay cilmi marka waxaa la yidhaahdaa cilmigu niyadu saxaa niyaduna waxay saxdaa acmaasha maaragtay baabu طarxi الإimaam almas'alaةa calى asxaabihi liyakhtabira ma cindahum min alcilm qaababka dadka wax loo baro ayuu ka hadlayaa oo ah in dadka la imtixaano oo wax la weydiiyo oo tartamo loo qabto oo maaragtay sidaas maaragtay cilmiga si ay qof walba ay u raadiso baabu darxi الإimaami imaamku inuu soo tuuro almas'alata mas'alada calaa asxaabihi asxaabtiisa inuu su-aal kusoo tuuro dadka uu waxbarayo alimaam macnaha caalimkana way noqon kartaa qofka caalimka ah oo cilmiga dadka u dhigaya inuu su-aal kusoo tuuro dadkaas marka uu waxbarayo liyakhtabira si uu u jirrabo ama uu u imtixaano maa cindahum dadka waxa agtooda ah oo min alcilmi aqoon ah aqoonta marka ay leeyihiin si uu u hubsado waxyaabihii uu baray inay wax ka fahmeen dakahooda iyo fahamkooda maaragtay inay maaragtay ay wax fahmeen sidaas oo kale leanno haddii wax layska akriyo on lays imtixaanin low laalima lakana alximaaru faqiha lale haddaan wax laysweydiinayn qof walba iska caalamay noqo lahayd su-aasha iyo taas ayaa maaragtay kitaabka marka aadan u dedejinaynaa can ibni cumar cabdullahi ibni cumar waxaa lagu radi allahu canhuma isaga abihi allah ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullah ilahi rasuulkiisa wuxuu yidhi ina min ashajari geedaha waxaa ka mid ah shajaratan geed laa yasqudu uusan dhacaynin waraquhaa caleenteedu aysan daadanaynin wa inahaa geedaasina mithlu lmuslimi muslimka oo kale wey maaragtay mathalu lmuslim iyo mithlu lmuslim waa isla mid maaragtay shib iyo shabax sidaas oo kale lamid tahay waa isla mid labaduba muslimka oo kale weeye ee faxadithuunii iga sheekeeya maa hiya geedaasi waxa ay tahay fawaqaca annaasu dadkii waxay ku dhaceen fii shajari lbawaadi baadiyaha maaragtay geedaheeda ayay ku dhaceen oo maaragtay geedo fara badan ay sheegeen waa geed hebel waa qurac waa qansax waa kada wax aan kala duwanay sheegeen laakiin ma aysan asibin faqaala cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi fawaqaca fii nafsii nafteyda waxaa ku dhacay annahaa geedaasi annakhlatu inay tahay geedtimireedka inay tahay fastaxyaytu markaa waxaan ka xishooday inaan arrintaas sheego liannahu abubakar iyo cumar aabihiis iyo dadkii cudamada ahayo waaweynaay ayaa maaragtay joogay isaguna aad buu u yaraay markaas uma intaa dabeed qaaluu waxay yidhaahdeen xadithnaa noo sheeg maa hiya geedaasi waxa ay tahay yaa rasuul allah ilahi rasuulkiisiiw qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allah alay wasalam hiya iyadu annakhlatu geedtimireedka wey maaragtay marka min ashajari shajaratan macnaha mulaaxadadaas waxa weeye shajar haddii uusan ta' lahayn waa ismuljinsiyaa le waa geedaha oo dhan shajara haddii ta' leedahana waa geedda keligeeda maaragtay baqaratin baqar oo kale baqarku waa caamka baqaratin waa sidoo kale maaragtay marka xadiidka waxaa laga qaadanaya imtixaan inuu caalimku imtixaanayo dadka dalabada adhaantooda waxyaabaha ka qarsoonaa kara isagoo weliba u cadaynaya haddii aysan fahmin waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa in wax la akriyo oo la laqbeeyo oo korka keliya laga eego inaysan muhiim yahayn in la fahmo inay muhiim tahay sidaa daraaddeed baab kaleu xitaa bukhaari u baabaystay uu yihi alfahmu fi lcilmi sidaas oo kale macnaha cilmiga in la fahmo ayuu kitaabkan maaragtay isla xadiiskan mar kale u baabaystay kitaabka asalka ah maaragtay waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka dhalinyarada ah ee dadka ka waaweyn oo ka garashada iyo cilmiga badan inuu maaragtay ka xishoodo haddaan xishoodkaas uusan gaarsiinaynin maslaxa inay meesha maaragtay ay tagto waxaa laga qaadanayaa dadka waaweyn taqdiirintooda sidoo kale waxaa kaloo laga qaadanayaa darb alamhaal dadka markii wax la fahamsiinayo
wax ay yaqaaniin in wax kale maaragtay lagu fahamsiiyo. marka weliba riwaayinka sida ku sugneed aabihiisu u sheegay markaasu wuxuu ku yidhi adduunyada dhan waxaa iga ficnaan lahayd inaad maaragtay sheegi lahayd sidaas oo kale arrintan. yacni waxaa kaloo laga qaadanaya waalidka sida u jecel yahay carruurtiisu inay sara maraan oo wanaagsanaadaan oo meel walba ay maaragtay ay gaaraan. sidaa daraaddeed waxaa la yidhahdaa bini aadamka waxaa jible u ah inuu sarreeyo uu jecel yahay, laakiin qofka kaliya uu ogol yahay inuu ka sarreeyo maaragtay waa carruurtiisa. qofka kaliya uu ogol yahay waa carruurtiisa maaragtay. marka meesha wajhu shabah wuxuu yahay muslimka iyo geedka timirta xagee isaga egyihiin. geedka timirta laga bilaabo markuu dhasho waxaa wabilmulaaxada waxaan sheegayaa rasuulku markuu su-aashaan weydiinayay wuxuu haystay jumaarkuna waxa weye geedka timirtu markuu dhasho isagoo maaragtay cargada ahoo markaas dhashay laantiisa iyo sida quwax iyaa loo isticmaalaa waa la ruugaa. marka xataa culammadu waxay leeyihiin qofka haddaad su-aal weydiinaysa aad u adag inaad xoogaa qariino yar oo wax tusi karta. marka geedkii timirta maadaama laantiisa u hayay ayuu sidaas oo kale u weydiiyey. marka meesha isaga egyihin waxa weye geedkaas waa geed dhan walba nacfi kale maaragtay. markii uu dhasho sidiisaa loo cuni karaa, markuu maaragtay miro dhalana mirihiisaa lagu intifaacayaa, laamihiisaa guryaha lagu dhistaa, salkiisa ayaa maaragtay xarka iyo wax maaragtay loo isticmaalaa. marka hal xubi maaragtay meel oo la tuuro ma lahan. mu'minkuna waa sidoo kale, yacni waxa weeye afkiisaa ku anfacaya, gacantiisa maaragtay ku anfacaysa, qowlkiisaa ku anfacaya, khayr jacaylkiisa iyo ayaa ku anfacaya. waxaasoo dhan ayuu yahay sidaas oo kale. maa jaa fi lcilmi wixii ku yimid maaragtay cilmiga, yani barashada cilmiga iyo cilmiga maaragtay gudbintiisa sidaas oo kale wey. can anas waxaa laga radi allahu canhu alla ka raadinaya qaala wuxuu yidhi anas ibnu malik ibnu nadr oo khaadimkii rasuulka ahaa qaala wuxuu yidhi baynamaa goor naxna inagu juluusun aan nahay kuwa fadhiya maca nabiga la jirkiisa fi lmasjidi masjidka dhexdiisa dakhala rajulu nin baa soo galay, ninkaasoo calaa jamalin maaragtay rati dushiisa saaran. fa anaakhahu ratigii wuu arumiyey fi lmasjid. yani riwaayooyinku waxay caddaynayaan kale in baabka masjidka fa anaakha baciirahu calaa baabi lmasjid facaqalahu uma dakal. marka ha u qaadan in ratiga lasoo dhexgeliyey masaajid dhexdiisa la fariisiyey. sidaa daraaddeed maalikiyada kale xadiiskan daliishato waxay leeyihiin maaragtay fadalaadka xoolaha ma'kuulu laxmi ah waa maaragtay ma ahan nijaaso, waa daahir maadaama masaajidka dhexdiisaba lasoo arumay ratigana inuu meeshii ama ku kaadsho ama maaragtay saaladii iyo digadii lagama aaminxan. marka adilo kale oo badanna waa ay haystaan, laakiin kan yani riwaayada kalaa fasirayso albaabka masaajidka in lagu xiray ayay ku fasiraysaa. uma intaa dabeed caqalahu maaragtay wuu dhaaday ama maaragtay wuu dabrayo meesha ayuu ku dabray. uma intaa dabeed qaala wuxuu yidhi ayukum kiineba muxamedun muxamed u yahay. yani rasuulka sala allahu alay wasalam dadka calaamad gooniye lebis gooniye iyo isfuqaari ma lahayn, macnihii waxa weeye dadkaba lagama garanayn. marka dadku isaga dhex jiray ilaa markii dambe saxaabadu ay garteen oo maaragtay in rasuulka mansiladiisa la garto. meelaha qaarkood riwaayinka qaarkood sheegayan in meel loo sameeyey uu fariisto dadka maaragtay ay ku gartaan inuu ka gooni yahay dadka. laakiin markii hore sidaanu ahay keebaa muxamed ah oo maaragtay walxala nabiguna muttakiun uu maaragtay uu ku dangiigo uu fadhiyo wey maaragtay bayna adhurihim dhexdooda. yani bayna adhurihim waxaa laga wadaa dhahrina waa ka horeeya, dhahrina waa ka dambeeya. marka sidaas oo kale wey dadka dhabaradooda isdhex fadhiyo sidaas oo kale isdhex fadhiyo wey maaragtay. faqulnaa waxaan idhi hada rajul waa ninkaa alabyad ee cad, cadaankana abhad ma ahayn rasuulku, mid boosha ma ahayne sida ay caddaynayaan maaragtay sifooyinkiisa rasuulka musharab bixumra waay, mid maaragtay guduud ku jiro. cadaan maaragtay aad boosh u ah mahayn, waa cadaan guduud ku jiro ahaa rasuulka sala allahu alay wasalam. marka saas ku qeyd hada rajul waa ninka alabyad ee cad almuttaki ee halkaa ku dangiiga. faqaala lahu rajulu ninkii wuxuu ku yidhi
faqaala lahu rasuulka wuxuu ku yidhi alrajulu ninkii ibna cabdilmuطalib yani ibnadaas waa kor dhigan tahay waa munaade mudaaf ah marka yaadii baa ka maqan yabna cabdilmuطalib cabdilmuطalib inankiisiyow oo rasuulka awowgiis waaye faqaala lahu nabiyu rasuulku wuxuu ku yidhi qad ajabtuk waan ku ajiibay waan ku maaragtay aqbalay faqaala markaasu wuxuu yidhi ninkii inii anugu saa'iluka waan ku weydiinayaa famushadidun calayka fi lmas'ala mas'aladana waan kugu adkaynayaa mas'aladana waan kugu adkaynayaa si adag oo qallafsan ayaan wax ku weydiinayaa ee falaa tajid calaya ha ii caroonin fii nafsika naftaada ha iiga carooninoo ha ii caroonin faqaala wuxuu yidhi sal weydii maa badaa laka maaragtay wixii kuu muuqdo oo aad doonaysid inaad ka jaahil baxdid iweydii faqaala wuxuu yidhi as'aluka waxaan kugu weydiinayaa birabbika adiga rabbigaadan wax kugu weydiinayaa wa rabbi man qablak dadkii kaa horreeyey rabbigoodii ayaan wax kugu weydiinayaa ee allaahu alla miyaa arsalaka ku diray ila nnaasi dadka kuu diray kullihim dhammaantood dadkoo dhan ma allah kuu soo diray faqaala rasuulku wuxuu yidhi allaahumma yani allahuma haddaad aragti ya allah weeye marka miimtu waxay wakiil ka tahay yaadi allaahumma allow nacam ha yani ilaahay baan markhaati gashanayaa waa run weeye arrintaasi in dadkoo dhan la ii soo diray qaala wuxuu yidhi anshuduka billaah ilaahay baan maaragtay kugu dhaarinayaa sidaasoo kale as'aluka billahi allan kugu weydiinayaa waa lagu fasiray yani codkaygaan alla kor uu qaadayaa ayaa asalka uu yahay huwa rafcu sawt as'aluka raafican nashidatii anoo codkayga kor u qaadaya ayaan kugu weydiinayaa allahu alla miyaa amaraka ku faray an tusalliya inaad dukatid asalawaati alkhams salaadaha shanta ah asalawaati alkhamsa waaye sidaasoo kale an tusalliya inaad dukatid asalawaati marka asalawaati waa mafcuulu bihigii waana jamcu muanaf saalim oo kasrada u ah alkhamsana sifo waxay u tahay asalawaati marka maadaama wax kor dhigan ay sifo u tahay waa kor dhigan tahay iyaduna tan maxalkeedaa kor dhigan mogta asalawaati alkhamsa salawaati waa hoos dhigan tahay an nusalliya miya an tusalliya ayuu aniga ii qorayaa an nusalliya inaan dukanno asalawaati salaadaha alkhamsa ee shanta ah fi lyowmi maalintii iyo waleyla habeenkii iyo maalintii in salaado shana aan dukanno ma allah ku faray qaala rasuulku wuxuu yidhi allaahumma nacam haah ilaahay baan maqaati gashanayaa waa run arrintaasi qaala wuxuu yidhi anshuduka billaahi allaan kugu dhaarinayaa allahu alla miyaa amaraka ku faray an tasuuma inaad soomtid haada shahra bishaan oo shahru ramadaan ah min asanati inaad sanadka ka soomtid qaala wuxuu yidhi allaahuma nacam yani ilaahay baan maqaati gashanayaa waa dhab arrintaasi qaala markaas wuxuu yidhi anshuduka billaahi allaan kagu dhaarinayaae ama allaan wax kugu weydiinayaae allahu way ahayd marka hamzatu istifhaama laga hormariyey markaasay sidaas isku noqotay allahu alla miyaa amaraka ku faray an ta'khuda inaad qaadid haadihi sadaqata sadaqadaas min agniyaa'ina dadkeenna tanaadka aad ka qaadid oo fataqsimahaa markaa aad u qeybisid calaa fuqaraa'ina dadkeenna fakriga ah ma ilaahay baa sidaa ku faray qaala nabiyu sala allahu alay slam nabigu wuxuu yidhi allaahuma nacam ilaahay baan maqaati gashanayaa arrintaasi waa dhab waa run faqaala arajul ninkii marka wuxuu yidhi aamantu waan rumeeyey bimaa ji'ta bihi waxaad la timid wa ana anuguna rasuulu man waraa'i wey kuwa qaalo min udhigaad arkaysaa rasuulu man waraa'i dadka iga dambeeya ayaan fartiin wade u ahayo ayagaan warka ka wadaa oo su-aalahan daraaddoodaan u weydiinayaa jawaabtaadana iyagaan u geynayaa wey maaragtay wa ana rasuulu man waraa'i
dadka iga dambeeya maaragtay waxaan ahay nin fartiin wada u ahoo oo maaragtay ergey ka ah ayagaan marka warka u gudbinaya oo min qowmi qoladayda ah waana anuguna dimaam ibnu thaclaba ayaan ahay akhu bani sacd ibnu bakr sacd ibnu bakri qoladaas la yidhaahdo walaalkoodaan ahayo qabiilkaas ayaan maaragtay ka tirsanahay wey maaragtay marka xadiiskan bukhaari asalka oo kale wuxuu u deliishadaa marka uu ka hadlaayo cilmiga qaababka riwaayada loo guto ama lagu soo qaato mathalan alqiraa'a cala shaykh leannahu ninkaanu rasuulku salaadaas sidaas iyo saasa ma usan dhihin laakiin isagaa weydiiyey markaas uga jawaab marka in salaadu ay waajib tahay rasuulku uma sheegin lakin isaga wuxuu yidhi salaadaha maalla waajibkaaga markaasuu yidhi haadaas uu yidhi ayuu qiraa'a cala shaykh oo kale wey oo maaragtay su-aalahaas oo dhan haddii qofku markuu wax akrinayo uu ama kitaabka dadka ka warinayo uu sidaas kale ugu akriyo uu yidhaahdo waana sax marka halkaas ayay waxyaabaha wax lagu wariyo oo duruqul maaragtay lagu soo qaato xadiidka ayay maaragtay ka mid tahay marka ninkan reer baadiyaha iska ahaa marka waxaa muuqata usluubkii rasuulka munaasibka u ahayd inuusan marin oo laa tajcaluu ducaaء الrasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum bacda yani ibna cabdilmuطalib oo kale iyo rasuulka waa aragteen qur-aanka ma aragtay ambiyada kale yaa muusa iyo yaa nuuxu iyo waa ku qoran yihiin laakiin rasuulka iyadoo nido ah qur-aanka uguma soo aroorin maaragtay in magaciisa maaragtay loogu yeero iyadoo khabar ah waa ay soo aroortay muxamedun rasuulullah laakiin iyadoo loo yeerayo yaa ayuha الnabiy iyo ya ayuha الrasuul iyo sidaasoo kale ilaahay ku ikraamaa ku qadariya marka cabdullahi ibn mascuudna wuxuu leeyahay inagu waxaan jeclayn inuu yimaado nin reer baadiye ah oo maaragtay adag oo su-aalaha anagu aan ka xisheynayno dhan maaragtay isagu maaragtay sheega si aan cilmi maaragtay meeshaas aan uga helo marka xajkii waa uu ka tegey sida raajixaana waxa weye waktiga oo ninkaan rasuulku u imaanayey xaajku farad uu ahaa marka waxa weeye hadba isaga wixii markaa munaasib u ahaa oo ayuu maaragtay ka hadlay arkaantii kale waaweyneed maadaama xajku marka kasta uu istidaacad ku helan yahay uusan qof walba ayna sidaas oo kale ku ahayn ninkaanuna yani waxa weeye waa taqriir iyo cilmi gudbin ayuu arrintan u samaynayaa sida baabka loogu gudbay baabun fi lcilmi ma ahana ninkaanu muslim uu ahaa intaana uu aaminsanaay sida maaragtay shuraaxdu ay leeyihiin oo markaa uguma horreysay islaamnimadu laakiin wuxuu doonayaa waxyaabahan uu rasuul ka hubsanayo inuu dadki usii sheego uu sii gudbiyo marka saas baabun fi lcilmi ayuu maaragtay u yahay marka waa ka gudbayna wax badan in akrina rabna can ibni cabaasin waxaa laga wari radi allahu canhuma allah ka raadi noqdee ana rasuul اllahi ilah rasulki sal ه alay slam bacatha wuu diray bikitaabihi kitaabkiisa wuxuu la diray rajulan nin ayuu maaragtay la diray yani sanadkii wufuudda loo dirayey kisra qeyb loo diray qeyb loo diray hiraqla qeyb maaragtay sidaas oo kale marka kitaabkii oo dacwada loogu yeerayay dadka madaxda oo adduunka jooga ayuu maaragtay rasuulku nin la diray marka ninkaasna cabdullahi ibn xudaafa asahmi weeye cabdullahi ibn xudaafa asahmi ninkaas magacaas la weeye saxaabiga jaliilkaa weeye wa amarahu rasuulku wuxuu faray an yadfacahu kitaabka inuu u dhiibo u gudbiyo ilaa cadiimi lbaxrayn baxrayn meesha la yidhaahdo ninka maaragtay madaxda u ah inuu maaragtay u dhiibo marka carabtu marka waxay iska ahaayeen intaan xarameynka degan oo ayagu iska mustaqil ahay laakiin inkastoo ay saameynaysa maahan lakiin inta kale qeybtan ciraaq iyo yeman iyo waxay raacsanaayeen qoladii eraanta iyo kisra qoladan sham iyona waxay raacsanaayeen room marka sidaasay ahaayeen marka qoladan ilaa baxrayn iyo xataa waxay raacsanaayeen kisra
marka ninkaas cadiim البحرين marka المنذر ابن ساوي ayaa la dhihi jiray فدفعه عظيم البحرين ninkii بحرين madaxda u ahaa kitaabkii wuxuu u dhiibay إلى كسرى ayuu u dhiibay فلما goortii قرأه uu akhriyey كسرى مزقه kitaabkii wuu kitfay wuu burburiyey wuu jexjexay qaala raawigu wuxuu yidhi fadacaa calayhim qoladii kisra iyo reer faris furus wuu habaaray rasuulki ilaahi sala allahu alay wasalam fadacaa wuu habaaray calayhim dushooda rasuulullahi ilahi rasuulkiisa an yumazaquu in la kitfo oo la burburiyo kula mumazaqin burburin iyo kitfid dhammaanteed in la baabi'iyo ayuu rasuulku maarata ku habaaray marka isla markiiba wiilkiisii ayaa maaragtay dilay xukunkiina maaragtay ka qaatay way maaragtay marka hiraqlana sidoo kale nin buu ugu dhiibay marka hiraqla kitaabkii xitaa jaldi intuu u sameeyo meel dhigtay rasuulkana hadiyad iyo waxba usoo dhiibay maaragtay yani dadku ayagoo mucaarad la wadayaa la kala xigmo badan yahay ilaa waqti dambe ayuu kitaabkii soo gaaray marka culimadu mulaxadooyinkii sheegaan waxaa ka mid ah yani reer ruum boqortooyadooda iyo xukunkoodu yani noocan ma respectay rasuulka siiyeen iyo maaragtay qadarin ayuu siiyey inuu islaamowba ku sigtaba waa anagii xadiidka kusoo marnay abu sufyaan laakiin waxa weeye xukunkiisa banna maaragtay bimulkihi wuxuu ku bakiilay boqortooyada maahane waa inuu islaamo ku sigtay maaragtay marka baabka cilmiga xadiidkan ka waafaqay wuxuu ka waafaqayaa cilmiga in duruq fara badan lagu gudbiyo ay ka mid tahay qoraalka iyo weliba cilmiga ruuxadiisana maaragtay in la qoro oo si uu u sugnaado oo maaragtay la diiwaan geliyo kutubta lagu qoro oo dadka loo gudbiyo anna rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam bacatha wuu dilay bikitaabihi kitaabkiisi ama warqadiisa laga wadaa kitaabka hadda waxaa laga wadaa risaalada laga wadaa warqada rajulan nin ayuu la diray cabdullahi ibn xudaafa sahmiye weeye wa amarahu wuxuu faray an yadfacahu inuu u geeyo uu u dhiibo ilaa cadiim البحrayn ninka almundir ibnu saawi la yidhahdo inuu u geeyo fadafacahu cadiim البحraynna wuxuu usii dhiibay ilaa kisra ninkii kisra ayuu u dhiibay marka kisra magaca uu leeyahay laakiin titlekaas ama maarata jagadaas uu haystaa kisra la yidhaahdaa nin walbo ma jagadaas qabsada kisra wey oo ruum madax u noqda sida fircawn nin walbo oo qabsada masar uu ahay nin walbo oo qabsada maarata ruumna uu hiraqla u ahay sidaas oo kale falama qara'ahu markuu akhriyay mazaqahu wuu burburiyey qaala wuxuu yidhi fadacaa calayhim rasuulullahi ilahi rasuulkiisa wuu habaaray dacaa lahu iyo dacaa calayhi waa kala laba calayhi haddii qaadato waa habaar lahuna waa duco an yumazaquu in la burburiyo kula mumazaqin burburin maaragtay dhammaanteed maaragtay in la burburiyo can anas waxaa laga wariyay radi allahu canhu allah ka raad noqday anas bin malik bin nadr khaadimkii rasuulka waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kataba nabiyu sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu qoray kitaab ayuu qoray yani risaale iyo warqad ayuu qoray ow araada wuxuu doonay an yaktuba inuu qoro faqiila lahu waxaa rasuulka lagu yidhi inahum dadkaa madaxda ahi laa yaqra'uuna ma akhriyaan kitaaban kitaab ilaa makhtuuman mid shaabadaysan ama tiimbaraysan inuu yahay mooyaane yani dadka madaxda markii loo dirayo marka waxaa laga qaadanayaa dad haddaad wax u qoraysid in waxaadu ay muwathaq yihiin oo ay maaragtay documenti rasmiya yihiin oo ay tiimbaraysan yihiin ama qofka loo dhiibayana uu aamin yahay qofka soo dhiibay fartiisana la yaqaano marka sidaas oo kale markaas waa lagu aamini karaa inay qofkii ay tahay ruuxadiisi inahum dadka madaxda ama ahlu kitaabka ayaa markaas iyo kuwan kale oo maaragtay iyaguna kisra oo wathaniyiinta ahayeen laa yaqra'uuna ma akhriyaan kitaaban kitaab ilaa makhtuuman inuu shaabadaysan yahay mooyaane faاtakhada markaa wuxuu samaystay rasuulku sal lla alay slam khaataman maaragtay tiin bare wey maaragtay oo min fidatin fida ah naqshuhu isaga waxa ku qoran oo lagu naqshadeeyey oo tiin baraha markii meesha lagu dhufto ka soo baxayana waxa weeye
muxamedun rasuulullah ayaa naqshad looga dhigay kaanii waaba anigoo anduru eegaya ilaa bayaadihi tiimbarahaas maaragtay caddaankiisa fii yadihi rasuulka gacantiisa yacni waana fargashi waana tiimbare marka rasuulku bahalkaas fargashiga ah ayuu maaragtay ku tiimbaray jiray oo magaciisa naqshadiisuna maaragtay uu ku qoran yahay rasuulka dhabarkiisana yani way ku yaalay inuu rasuulku khaatam yahay marka khaatam haddii la yidhaahdo fargashigana wuu yahay tiimbarahaasna waa loo isticmaalaa laakiin khaatim haddii la yidhahdo waa isim faacilo waa kii ugu dambeeyey wey maaragtay waxaa kaloo khaatamka la yidhaahdaa markii kuusha ay soo wareegto midka ugu dambeedo uu ku xiran yahay marka rasuulku sidaas oo kale ambiyada u yahay khaatamu nabiyiin yani waa meesha ay markii soo ururtay ay isugu timid sidaas oo kale way maaragtay ma kaana muxamedun aba axadin min rijaalikum walakin rasuulullah khaatama nabiyiin sidaas oo kale marka xadiidkana waxaa laga qaadanayaa kitaabadii وبالملاحظة رسولك صلى الله عليه وسلم مركي هراء حديثك إن لقروات ديدي حديثك صحيح مسلم كسوغان لكن وعامة سنة الرسول كلما قرنين وقت أوجوغت أمانتين لكن واحد جرتي إنه أقلالي مركي دم أبي شاه وكلا مارتي إن لو قرأ علي بن أبي طالب وكلا إنه يري مارتي فكاك الأسير إيو ديادة إيو كتابي كقرنتهي أيا رسولك سياس وكلا يقرأ marka kutub noocaas oo gooniya laakiin guud ahaan laana markii hore waxa la diidayay in kitaabka ay isku darsamaan ama waxa la diidayay in sunnada aan xifdigeeda lagu dadaalin oo dadku maaragtay inay korka sidaas oo kale ay ka qabtaan laakiin waqtigii Umar ibn Abd Aziz ayaa la diiwaan geliyay sida daraadeeda sunnadu waxay noqotay yani urba in maaragtay saxiix iyo daciif iyo xasan iyo laga helo laakiin waqtigii rasuulka hadii la wada diiwaan gelin lahay sida quraanku mutawaatir u yahay uu mutawaatir maaragtay wada noqon lahayd oo xikmaana maaragtay ku jirto way maaragtay intaas kaani waaba anigoo anduru eegaya ilaa bayaadihi cadaankiisa fi yadihi gacantiisa ku jiro baabu man qacada حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها هذا وحو قال يا مركي علمي الله فريسانيو مجلسك قابك الله فريسانيو هداد سو داهديدنا قابك مجلسك او قيب غليسيد sidaas oo kale ayaa maaragtay laga qaadanaya baabu man ruux ayuu u baab yahay qaacada fariistay haythu meeshi yantahi akaado bihi isaga u kala akaado almajlisu fadhigu meeshi fadhiga macnaha markaad socotid fadhiga meesha banaana ugu dambaysa inaad maaragtay aad fariisatid oo aadan laba qofood oo isku dhagan aadan ciriiriyin ama aadan qof kicinin oo meeshi majlisku uu ku ag yahay oo banaano xalqad wareegeedu ka socdo inaad ka gashid ومن رأى يروحي أركي فرجة ميل بنان في الحلقة يعني وريقة حلقة علمية ميل بنان روحي كو أركي أو فجلس مركا فريستي أما سلا وقفوا يرك لفوق الأركتي مركاسات بوسكي مركتي سيداسو كالو فريستي عن أبي واقد وحالقوذي الليثي أبي واقد الليثي الحارث بن مالك magacaas in la yiraahdo ayaa ugu raajixsan al-Harith ibn Malik radiyallahu anhu Allah ka raadu noqday dadkii Makka maaragtay ku soo islaamay ayuu maaragtay ahay fatxu Makka oo waliba markii la sii marayay Xunayn loo sii socday ijcal lana daat arnaud kama lahum daatu arnaud sidaas oo kale ragii ninkii yiri way maaragtay oo rasuulku yiri maadaama laba bilood ka yaroo markaa islaam ahay marka anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam بينما وقت هو رسولك جالس وفديو في المسجد مسجد دحديسا والناس ددكنا معه اسغا لجيركيسا يهين يدو ددكو اي رسولك لا فديان او رسولك هرهيسا جوغان اذ اقبل 3 نفر سدح قفوت ايا سو قابشي يعني نفر هم 3 سياسه لغا ودا لكن سدح كوخود لغا ما ودا لانه نفر كسيده لو بدن yahay waxa way sida raxdi oo kala way 3 iyo 10 inta u dhaxaysa laakiin hadda waxa laga wadaa 3 ruux baa laga wadaa 3 ruux baa soo qaabishay faaqbal isnaani laba ruux
maaragtay way soo qaabileen ila nabi sallallahu alayhi wasallam nabigay soo qaabileen oo xalqadii iyo cilmigii meeshii bay soo qaabileen wadahaba waxid midna wuu tegey oo waxa laga wadaaba maba milixsanba xalqadii iyo cilmigee hortiisu u socday qaala wuxuu yidhi fawaqafna calaa rasuulillahi ilaahi rasuulkiisa dushiisa ayaan istaagnay yacni xalqadiibaa buuxda markaas ayaan istaagnay fa ama axaduhumaa mid ka mid a fara'aa wuxuu arkay furjatan meel bannaan oo fi lxalqa ayuu ku arkay meeshii wareegii cilmiga ayuu wuxuu ku arkay meel bannaan fajalasa fiiha wuu fariistay wa ama alaakharu kii kale fajalasa wuu fariistay khalfahum gadaashooda waa midda laga wado xayثu yantihi bihi lmajlis hadduusan meel bannaan ka helaynin meel kaloo isagu xalqa cusub inuu bilaabo oo gadaashooda ayuu fariistay wa ama thaalitثu kii saddexaad faadbara wuu jeestay wuu daba jeediyey daahiban xaalu yahay mid tegaya waa iska socdayba ninkaasu falamaa goortii faraqa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay uu maaragtay dhammaystiray qaala wuxuu yidhi alaa akhbirukum miyaanan inkaga warramaynin can innafari athalaatha saddexdii nin miyaanan inkaga warramaynin balaa weeye nooga warran ama axaduhum midkood fa aawaa ila allahi allah ayuu maaragtay u dunmay fa aawaahu llah fa aawaa ila allahi midda hore waa sidaas oo kale qur-aankay ku jiraan iyadoo midna madan tahay midna ay maaragtay aysan madnayn fa aawaa ila allahi alla u dunmay fa aawaahu llahu allana wuu dumay marka midda hore waa laazim ta dambena laakiin waa mucaddi alla u dunmay allana wuu dumay isaga wa ama alaakharu kii kale faاstaxyaa wuu xishooday yacni taraka almusaaxama xayaa'an min annabiy wa min alxaadiriin inuu dadka ciriiriyo ayuu ka tegey oo uu ka xishooday si uusan u ciriiriyin rasuulka iyo saxaabadiisa maaragtay faاstaxya allahu minhu allana wuu ka xishoodayo ilaahayna wuu ka xishooday wa ama alaakharu kii kale fa acrada wuu jeestay dikrigii iyo xalqadii iyo cilmiga ayuu ka jeestay fa acrada allahu caza wajal ilaahayna wuu ka jeestay canhu xaggiisa allana wuu ka jeestay xaggiisa marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya markii cilmi la qaadanaya qaabka taxliiqa ah oo wareega ah maaragtay in loo fariisto waxaa kaloo laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay xilaqda dikriga iyo cilmiga fadliga weynay leedahay oo meel cilmi lagu akrinaya haddaad timaadid haddaan wax daruuriyu kaa fakanaynin inaad ka faa'iidaysato haddii xataa mas'ale cilmiga aadan ka faa'iidaysan fadhigaas aad fadhiday waxa weeye qowmun laa yashqa jaliisuhum waa kii rasulku lahay waa qolo dadkii la fariista xataa nin xataa iska yimi oo dan lahayo nin meesha kula ballamay hadduu iska fariista xataa maaragtay uusan hoogaynin xadiidkii 40 ku jiran waadinkii maaragtay raxmad ayaa hareeraysa sakiina kusoo degta malaa'ig ayaa maaragtay sidaas oo kale hareeraysa marka waa wax aad iyo aad u weyn sidaasaa maalan laga qaadanaya marka dadka waxaa maalan nin taabicin oo ayaan jeclahay ayaa wuxuu yidhi a'imadii waaweyn ka mid ahaay haddii aan arko meel xadiid lagu akrinayo xataa wuxuu yidhi xadiidkaas la akrinayo ninka akrinaya intuusan dhalan haddaan maqlay waan iska fariisan jiray lacalahu xikmad dheeraada iyo faa'iido dheeraada in halkaad maaragtay iiga soo baxdo marka aaday muhiim u tahay waqtigaan hadda laga hijrooday maahan cilmigii marka waxaa laga qaadanaya qaabka edebta maaragtay majliska loo fariisanayo wey maaragtay waa sidaasaan uga soconayna baabu qowli nabiy sala allahu alay wasalam nabiga qowlkiisa ayuu baab yahay ruba muballigin mid muballagin cafwan mid la gaarsiiyey badana oo awcaa ka xifdi badan ka weelayn badan min saamicin midkii wax maqlay oo muballiq ahay oo isaga gaarsiiyey mid la gaarsiiyey oo ka weelayn badan ayaa badan wey maaragtay marka culammada qaar waxay leeyihiin waxaa lagu fasiraa rubadu taqliilna way faa'iideedaa waxaa lagu fasirayaa taqliilka oo la yiraahdo badana lagama wadee waxaa laga yaabaa ruux wax la gaarsiiyey inuu ka xifdi iyo faham bato qofkii maqlay sidaas oo kale maaragtay leannu sida qofka marka ugu horeyda maqlay ayaa gaalibku inuu si fiican u fahmo ay tahay
marka laakiin waxaa dadka qaarkood laga yaabaa ruba xaamili fiqhin laysa bifaqih, qofka fiqigii iyo xifdigii inuu xifdiyo, laakiin qof ka fahmi badan oo fiqigii ka qaadanaya inuu u gudbiyo. ya mubalagin wey, maba noqon karto ism mafcuul wey, ha mid wax la gaarsiiyey wey maarata. awca waa ku kordhigay soo maha, ha shadku hoos mariyey, ha marka mubalaq wey, mid wax la gaarsiiyey badan ah oo awcaa ka xifdi iyo badan garasho min saamicin kii maqlay wey maarata. can abi bakra, abu bakra waxaa laga wariyey nufayc ibnu xaaris gaa hore usoo marna weeye radi allahu canhu alla ka radoonaye, qaala wuxuu yidhi qacada wuu fariistay calayhi salaam sala allahu alay wasalam, rasuulka naxariis iyo nabadgel korkiisa ahaatee, calaa baciirihi ratigiisa ayuu ku fariistay. wa amsaka insaanun ruux baa wuxuu qabtay bikhitaamihi maaragtay hogaanka ratiga, aw amase bizimaamihi hogaankiisa ayuu ruux qabtay, xariga ayuu maaragtay oo sanka uga xiran ratiga ayuu maaragtay ruux qabtay. oo macnaha waxaa la diidayaa rasuulka inuu la boodboodo la dhaqdhaqaaqo, markii la hayo si deganaana inuu istaago wey maaragtay. uma intaa dabadeed qaala rasuulku wuxuu yidhi ayu yowmin hada, maanta waa maxay tahay, waa maalin ma, yani waa xajat lwadaac rasuulku markuu aad iyo aad saxaabada ula dardaarmayay. fasakatnaa waan aamusnay xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu rasuulku sayusamiihi inuu ku magacaabi doono maalinkan siwa smihi magaciisa magacaan ahayn. qaala wuxuu yidhi alaysa yowma naxri, maalinkii dhuundhowga iyo maalinkii gowraca oo maalinka ciidda maalinkeeda koobaad ahoo maalinka tobanaad ah miyaysan ahayn xaj alakbar lagu tilmaamo? qulnaa waxaan nidhi balaa haa. qaala rasuulku wuxuu yidhi fa ayu shahrin haada, bilma ayay tani tahay, bilma ayaan ku jirna. fasakatnaa waan aamusnay xataa danannaa ilaa aan u marayno annahu rasuulku sayusamiihi bishaan inuu ku magacaabi doono bigayri ismihi magaciisa magacaan ahayn. faqaala rasuulku wuxuu yidhi alaysa bidilxija, bisha la yidhaha dilxija miyaysan ahayn? qulnaa waxaan nidhi balaa haa waa iyadii. qaala rasuulku wuxuu yidhi ina dimaa'akum dhiiggiina wa amwaalakum amwaashiina dhigagiina iyo amwaalakum maalalkiina iyo wa acraadakum sharaftiina baynakum adinka dhexdiina xaraamun xaraamay tahay, ka xurmati yowmikum hada, sida maalintaanu ay xaraam u tahay, fii shahrikum hada, bishaan dhexdeedana ay xaraam ugu tahay. maalin xurmo le sida ay u tahay maalinkan oo la weyneeyo ayaa mu'minka xurmadiisa dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa ayaa ka weyn wey maaragta. fii baladikum hada, magaaladiina dhexdeeda si ay maalinkan xurmo ugu leedahay, maalinkuna uu xurmo u leeyahay. liyuballig, ha gaarsiiyo ayuu rasuulku yidhi, ashaahidu kan xaadirka ahoo jooga, alghaa'iba kan maqan. fa ina ashaahida midka hadda jooga casaa waxaa laga yaabaa an yuballiga inuu gaarsiiyo man huwa ruux isaguba awcaa lahu isaga uga xifdi badan minhu mima balad, waxa uu gaarsiiyey qof uga xifdi badan oo uga garasho badan inuu gaarsiiyo ayaa laga yaabaa wey maaragta. sidaas ayaa maaragta laga yaabaa wey maaragta. marka ina dimaa'akum waxaa laga wadaa yani xadfu mudaaf camalaa ku jiray culammadu yidhahdeen, ina safka dimaa'ikum iyo wa amwaalakum akhda amwaalikum iyo wa acraadakum yani thalba acraadikum, yani dhiiggiina in daadintiisa iyo maalka qaadashadiisa iyo sharafta meel looga dhaco, intaasuba waxay xaraam u tahay oy la ogolayn in la qarariyo xurmadooda, sida maalinkan uu xurmo iyo sharaf u leeyahay, bishaanuna ay xurmo iyo sharaf u leedahay, beledka aad joogtaanna uu xurmo iyo maaragtay sharaf u leeyahay. marka ha gaarsiiyo yiri rasuulku sal alla alay wasalam hadalkaas kan jooga kan maqan. waxaa laga yaabaa midka jooga inuu gaarsiiyo cid isaga uga oqon roon waxa uu gaarsiinayo. marka waa sidaas oo kale. marka waxa weeye waxaa laga qaadanaya qofku xataa cilmigii isagoon fahmin oo qur-aankii mujarada lafdigiisi yaqaana
hadduu qof kale u gudbiyo qofkii u gudbiya waxaa laga yaabaa inuu sii raacdo cilmigii bato caalim noqdo ha adigoo maaragtay xadiiskii wax yar ka yaqaana intii yareed haddaad gaarsiidid oo basiga dad bartid waxaa laga yaabaa inuu sii kororsado ninkii uu caalim maaragtay noqdo marka balliquu canii walow aaya sida riwaayooyinka qaarkood wada aayad ba ha noqotee wixii maaragtay gudbi sidaas oo kale way maaragtay marka qof walba yani intay cilmiga taqaano inay maaragtay ay maaragtay gudbiso way maaragtay fa amsaka insaanun bikhitaamihi macnaha culummadu qaarkood waxay yidhahdeen bilaal ayuu ahaay riwaayooyinka qaara sidaas sheegay inuu bilaal maaragtay ratiga uu hayay sidaas oo kale marka rasuulkuna aad ula dardaarmay oo waxyaabuhu kala dardaarmay maalinkaas maalin weynay aheedoo waa kii rasuulku dhahay laa tarjicu bacdi kufaaran yadribu bacdukum riqaba bacdin gaalaha noqonina qaarkood qaarta kale qoorta uu ka goynayo oo gaalka ayaa da'bigiisu yahay muslimka inuu dhimo baabu maa kaana nabiyu wuxuu u baab yahay rasuulku waxa uu ahaa yatakhawaluhum inuu u kaleeyo kalkal bilmawcidati wacdiga iyo walcilmi aqoonta cilmiga iyo mawcidada inuu kalkal u sameeyo inuusan markii la arko cashar joogto ah oo aan 24 saac la joojinay uusan ahayne in loo kaleeyo maaragtay xilli jadwal loo sameeyo sidaas oo kale kay laa yanfiru si aysan u cararino aysan uga dharsino aysan ugu daalino ay nashaadkooda iyo hamidooda uusan maaragtay u noqono sidaas oo kale way maaragtay marka culummadu waa ay kala qaadaan oo waxay leeyihiin mawcidada waa sidaas dadka masaajidka wax laga wacdinayo ama beelahaba in dadka waqtiyo mawcido loo sameeyo laakiin qofka daalibi cilmiga oo raba inuu barto cilmiga isagu takhawul ma lahan waa inuu cumrigiisa dhan cilmiga siiya hadduu rabo inuu meel ka gaaro inuu qofku min u wado sidaas oo kale yacni qaabka u baranayo laakiin waa uu yeelan karaa kalkalaysigaas inuusan maaragtay man dalaba cilmiga wax walba qofkii dalba man dalaba alkulli faat alkulli wax dhan waa ka tegaya inaad maaragtay sigaar alcilmi qabla kibaarihi kutubtii hoose ka bilowdid laba kitaab oo aadan wada bara karin aadan isku mar bilaabin tartiib sidaas oo kale aad u wadid laakiin waqtiyada kamid aha wax baranaya kabacdiina waa iska dhaafaya yani qofka daalibkaa kuma haboona mahma balaq min alcilm ma kaana nabiyu rasuulku wuxuu ahaa yatakhawaluhum inuu maaragtay u jadwalaynayo ama maaragtay uu u kalkal u yeerayo bilmawcidati wacdiga waqtiyo maaragtay iyo walcilm cilmiga kay laa yanfiru si aysan maaragtay u noogin oo aysan u daalin wey maaragtay aysan uga cararin وعن ابن مسعود عبد الله بن مسعود ذهلي وحال رضي الله عنه الله كرمنا قال وحيري كان النبي وحوها يتخولنا إنه مارتي نو كلا جويو بالموعدة موعدة في الأيام مالمها إنه مارتي موعدة نو كلا كيسيو مارتي وسن اسكو كان حرينو مالمها هذا جدول كساس وكلا نو سميو كراهة السآمة إن أن مارتي دالنو ونعيو رسولك دراديد علينا دوشينا inuu macnaha cilmigii aan ka daalno ayuu rasuulku nacayay marka jadwal iyo marmarka qaarkood ayuu noo samayn jiray marka sidaasayna maarad ku fiicanta can anas waxaa laga wariyay radiyallahu anhu alla ka raduna cali nabiga wuxuu ka wariyay qaala wuxuu yidhi rasuulku yassiruu fududeeya walaa tucassiruu ha cuslaynina wabashiruu bishaareeya walaa tunafiruu dadka ha kala cayrinina yani yusriga maaragtay qaata oo cusriga ka taga bishaaro keena oo dadka maaragtay kala cayninina wax dadku ay kahanayaan oo dhib ku ah keeninina wey wax dadku farxayaan maaragtay keena wey maaragtay marka qofka daaciga sidaas la rabaa oo xataa qofka hadduu arko macsiyada uu ku jiro iyo siday u adag tahay inaadan tanfiirin oo dhihin adiga waa ku dhamaatay waad bishaaradiyo tiraahdi tooba kaliya kaaga filan soo dhawo wixii hore dhan waa burburayaan sidaas oo kale baabu man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi diin
man ruuxi yurid illaahu alla uu la doono bihi ruuxaas khayran wanaag yufaqihu alla wuxuu fahamsiiyaa fi diini diinta ayuu fahamsiiyaa khayr ruuxi alla la doono diinta ayuu allah subxaanahu wa tacaala fahamsiiyaa can mucaawiyata waxaa lagu radi allahu canhu alla ka ranada qaal wuxuu yidhi samictu rasuul llahi ilahi rasuulkiisaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya man yurid illaahu ruuxi alla uu la doono bihi ruuxaas khayran wanaag yufaqihu fi diini diinta ayuu fahamsiiyaa wainamaa in kalamaa ana anugu qaasimun mid cilmigii qaybiyan ayaan ahay wallaahu alle jalla caza wajal caza haalib ahay wajalla weynaaye yucطi cilmiga iyo fahamka dadka isaga u kala siiya dadkii cilmigii meel dadkii lagu wada siiyey ayaa nina uu faham fiican ka helaya iyo xifdi nina uusan wax badan ka fahmayn walan tazaal ka zuuli mayso hadihi اlummatu ummaddaani qaa'imatan mid ku taagan calaa amri illahi ilaahay amarkiisa iyo wadadii rasuulkiisa laa yaduruhum xaal uusan dhibaynin man khaalafahum dadka maaragtay ciddii khilaafta xataa yaأtiya ilaa uu ka yimaado amru llahi ilaahay amarkiisa uu ka yimaado marka xadiidka waxaa laga qaadanaya qofka khayrka lala doonayo waa qofkii diinta fahmay khayr wanaagsan oo kaamil qofkii lala doonayo waa qofkii diinta fahmay isagaana xadi iyo maal iyo jago iyo adduun oo dhan waxeeda dhan iyadaa maarata ka wanaagsan markaasuu rasuulku wuxuu yidhi wainamaa ana qaasimun anugu waxaan ahay mid qaybinaya cilmigii waan qaybinaya laakiin allah fahamka maaragtay siiya wallaahu caza wajalla yucطi allah siiya qof ayaan maaragtay 20 sano cilmiga ku dhex jiray mid hadda 2 bilood ku jiray ayaa fahamkii ka badan maaragtay ilahay baa maaragtay fahamka bixiyo yidhi walan tazaala ka zuuli maysa hadihi ummatu ummaddaanu qaa'imatan inay ku taagantahay calaa amri illaahi ilahay amarkiisa yacni waxaa laga wadaa daa'ifo dadkan ka mid ah laa shaka qar ka mida inay baadiyoobayaan laakiin qeyb ka mida ummaddaani in ay wadadii rasuulka iyo manhajkiisa ay ku taagan tahay ka zuuli mayso sida xadiidka qeybtiisa kale daa'ifa ay leedahay laa yaduruhum man khadalahum dadka man khaalafahum riwaayo kalaa waxay leedahay walaa man khadalahum marka dadkiiba waxay noqonayaan kuwa xaqa haystay kuwa ka soo horjeeda waxay noqonayaan kuwa xaqii ka horjeedaan kuwana ayagoo xaqii arkaya ayay qoladii xaqa wadatay baylihinayaan marka labadaasuba sax maahan xataa ya'tiya amrullahi ilahay amarkiisa ilah ka yimaado marka amrullaahidan culummadu waxay yidhahdeen qiyaamada lagama wadaa ciddeeda waxaa laga wadaa liannahu qiyaamada dad wanaagsan kumaba dhacdaba ee waxaa laga wadaa dabaysha waxaa mu'min oo dhan qaadaysa marka ilaa ay ka timaado intaasay joogayaan markaasaa waxaa adduunku haraya macnaa laa taqumu saaca qiyaamada ma dhacayso iyadoo dunida ay joogtaan cid allah dhahaya marka shiraaru khalqiga markaas unbaa qiyaamadu dhacaysaa laakiin amarka ilahay waxaa laga wadaa markii dabayshaas dadka mu'minka dhammaystiraysa ilaa ay ka timaado inta ka horeysa dad xaqa haysta way joogayaan maaragta baabu lfahmi fi lcilmi cilmiga maaragtay la fahmo ayuu baab u yahay can ibni cumar waxaa laga yiri radi allahu canhuma allah ka radnay qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn cinda rasuulillahi ilahi rasuulkiisa waa xadiidkii aan hore u soo marnay fautiya kunaa waxaan ahayn cinda rasuulillahi ilahi rasuulkiisa agtiisa fautiya waxaa loola yimid rasuulka bijumaarin maaragtay laan maaragtay nakla ahoo geedka timirta laantiisa oo cargada ahoo ayada ruuxadeeda maaragtay sidaasoo kale si quwax iyo lasaga ruugo faqaala rasuulku wuxuu yidhi ina min ashajari shajaratan laa yasqudu waraqaha wa inaha mithlu lmuslim wadakara alxadiid xadiidkii aan soo dhaafnay ayuu sheegay marka kuwa u celimaya xadiidkaa la soo dhaafay ma ogtahay wazaada fi hadihi riwaaya riwaayadan marka wuxuu ku kordhiyey faidaa ana markiiba anugu waxaan ahay oon ogaaday asgaru lqowmi dadka inaan u yarahay fasakatu waan aamusay yacni isagu waxaa igu soo dhacday uu yidhi inay geedka timirta tahay waana geedda rasuul ku sheegay anigoo laanta rasuulka geed timireedka laantiisao loo keenay u daliishanaya marka fahamkaas uu fahmay ayaa maaragtay laga qaadanaya oo maaragtay sufyaan ibn cuyeyne wuxuu dhihi jiray qofkii faham ilaahay siiyey diinta ha bararto ha ku dadaasho leanna wuxuu leeyahay qof aan fahmo lahaynu
hadduu waqti xataa bixiyo wax keeni maayo, laakiin wuxuu yidhi cilmiga haddii qofkii fahmada lahay uu dayaco cilmiga waa dayacmaya. waa sidaas oo kale qofkii marka fahmayey, marka fahamkaa laga wadaa. waxaa laga yaabaa geedkii iyo markii muslimku meesha isaga ay yihiin qofku hadduu ka fekero qofkii faham lahu inuu keeni karo sidaas oo kale. marka fahamku waa muhiim maaragtay. sidaa daraaddeed xadiidka waxaa muhiima lafdiga iyo lubiga. lubigu waa macnaha, lafdiguna maaragtay waa ereyadiisa inaad sidooda sax u haysatid maaragtay, iyo riwaayada. oo macnaha waxaa la yidhahdaa laba shay ayaa xadiidka muhiim u ah: addilaala iyo maaragtay thubuut, inuu xadiidku sugnaaday, iyo macnaha aad u daliishanaysid inay sax tahay. labadaas waa muhiim. qur-aanka marka dilaalada un baa isaga la rabaa maahane, waa isaga iska mutawaatir. baabu الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط in la kamto oo la jeclaysto في العلم aqoonta iyo والxikmati xikmada iyo murtida. yani اغتibاط waxaa la yihahdaa luqada carabiga in aad ruux cilmi leh ama xoolo haysta ama wax fiican haysta, in aad adigoo aan rabin in aad asiga laga qaado, ilaahu isagoo kale yaa isiiya inaad tirahdid. الاغتibاط kamasho iyo maarata majeersasho fi lcilmi, cilmiga iyo walxikmati, xikmada inaad majeersatid cilmigaas iyo xikmada. can cabdillahi bni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu canhu alla kala qala wuxuu yihi qaala nabiy, nebigu wuxuu yidhi laa xasada, xasad ma jiro ilaa fitnatayni, laba arrimood mooyaane. yani xasadkan lagama wado midkii qofkii zawaal nicma uu tamaninayo qofka kale in nicmadu ka suushay, ee waxaa laga wadaa allow yaa isagoo kale iga dhigo qof la yidhaahdo adduunka ma jirto ilaa laba arrimood qof leh mooyaane. rajulun ruux ataahu allahu ilaahay uu siiyey maalan, maal xalaal oo tayiba, oo fas sullida lagu salladay calaa halakatihi, maalka inuu halligo fi lxaqi xaqa. agoonuu ku bixinaya, ceelal ku qodaya, maaragtay madaarisuu ku dhisaya, masaajiduu ku dhisaya, muslimiinta iyo dacwada khayrka inay ku faaftuu rabaa. marka sullida marka waxaa loo isticmaalo uu leeyahay maadaama naftu in maalka laga qaado ay shuxigeedu adag yahay, yani naftii ayaa maaragtay ayuu dagaal la gelayaa si maalkaas uu xaq ugu baxsho maaragtay. marka nin maal xalaala haysta oo wadooyinka khayrka ku bixinayo, ilaahu isagoo kale iga dhig waa la yidhaahdaa wey maaragtay. iyo warajulu nin aataahu llahu alla uu siiyey alxikmata, murti iyo maaragtay xikmad. marka xikmada maaragtay waa qur-aanka iyo sunnada, khaasatan qur-aanka. imaamu shaafici marka wuxuu dhihi jiray alkitaab walxikma haddii laysku xujiyo, kitaabku waa qur-aanka, xikmaduna waa sunnada. lan qur-aankii meelay saa isugu xigsatay mogta. fa huwa ruuxaasu yaqdii biha, xikmadii iyo cilmigii ayuu dadka ku xukumayaa, wa yucallimuhaa dadkana wuu barayaa. marka labadaas ruux allow iga dhig waa la yidhaahdaa. marka cilmiga baabulcilmi maadaama aan ku jirno, in ruux cilmi leh ilaahu cilmigiisoo kale isii in la yidhahdo adigoo aan maaragtay asiga aan xasdaynin, waa sidaasoo kale wey maaragtay. rajulu nin aataahu llahu alla uu siiyey cilman maal, fasullida lagu salliday calaa halakatihi, inuu halaago maalkii baabi'iyo, fi lxaqi xaqa inuu ku baabi'iyo. anaa riwaayinka qaarkooda waxay leeyihiin wa qaliilun maahum, yani kuwa maaragtay maal kale oo bixinaya maaragtay waa yaryihiin, aaday u yaryihiin wey maaragtay. dadka cayrta qaata ayaa dadka soomaaliya ugu taajirsan hadda, haddii wax dhiibi la yidhahdo iyagaa ka roon. waa bahasha say ugu dhegan yihiin, waa khayr caadi. warajulu ruux aataahu llahu alla uu siiyey alxikmata xikmad, fahuwa isagu yaqdii biha wuu ku xukumaya, wa yucallimuha wuu baraya. baabu qowli nabiy, nabiga qowlkiisa uu baab yahay allahuma alla yucallimhu bar alkitaaba, kitaabka. cabdullahi ibnu cabaas ayuu rasuulku maaragtay ugu duceeyey ducadaas. can ibni cabaasin waxaa laga wariy radi allahu canhuma, allah ka raadi noqda, qaala wuxuu yidhi damanii rasuulu llahi, rasuulka ayaa idumay. yani riwaayinka qaarkooda sheegayo ilaa sadrihi, xabadkiisa ayuu rasuulku maaragtay u dumay, oo sidaasoo maaragtay uu u hangareeyey. wa qaala wuxuu yidhi allahuma allayow callimhu bar alkitaaba, kitaabka yani qur-aanka allo bar. xadiid kale allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil, ilahu diinta fahamsiiye oo fahamsiiye, tafsiirkana maaragtay bar.
cabdullahi ibnu cabaas nin aada faa'iqohu noqday. marka qisadaana waxay ku timid rasuulka sala allahu alayh wasalam oo maaragtay xaajoonaya oo khalaaga iyo isticmaalaya ayuu weysadii u diyaariyey. marka isagoo aad u dhalin yar ah maaragtay, marka ducooyinka meelo khaasaa laga helaa moogtaha. rasuulku markuu soo baxay weysadiisii alaabtiisii oo diyaarsay, yaa saan yeelay, cabdullahi ibnu cabaasaa sidaan yeelay, markaasuu u duceeyey rasuulku. marka in dadka cilmigana loogu duceeyo oo maaragtay ayaa laga qaadanayaa. qofka cilmiga doonayana ruuxadiisuna inuu duco dalbado, cilmiga in ilaahay u fahamsiiyo ayaa maaragtay laga qaadanaya sidoo kale. marka cabdullahi ibnu cabaas nin cilmigana haddee iska helay maahayne nin aad ugu dadaalo u ahay, oo wuxuu samay jiray ansaarta iyo ragga hore muhaajiriinta ahay iyo guryahooda ayuu u fariisan jiray. markaasaa la leeyahay qofkii matalan ama waa jiifa ama dambu, markaasuu iridda iska seexanaya. markay soo baxayaan ayuu leeyahay war hadde rasuulka meeshaad ogtaad ka joogtaa, maxaa dhacayood iigu soo ciddiri weyse, anaaba kuu imaalahaya haddaad masale iyo cilmi iga rabtid, maxaa keenay gurigayga iriddiisa inaad maaragtay jiifatid. markaasuu lahay cilmiga waa loo yimaadaa, isagu ma yimaado. sidaasuu maaragtay samay jiray, cilmiga halkaas ka gaaray. xitaa mar waxaa dhacday nin dhalinyaro ah ayaa arkay sida uu cilmiga uu dalaayayo. markaasuu yidhi ku qalqaaliy yiri cilmiga isla baranayna keen. markaasuu yidhi waxaad u malaynaysaa yidhi adigaan yar cilmigaada in loo baahan doono, cidna kuu baahamaysaa, ansaartii waaweyneed iyo muhaajiriintii iyo dadkii cilmiga lahaa ee joogay iska danayso wi. dabadeed wakti dambe kabacdi ayuu ninkii wuxuu u yimid cabdullahi ibnu cabaas oo inta saxaabadii iyo dadkii waaweynaa dhinteen cilmiga keligiis la weydiinayo, mid tafsiir weydiinayo, mid fiqi weydiinayo, dadki ay horan yihiin oo kuwii lagu jiro. markaasuu yidhi wallahi wax weyn ayaan dayacay. wuxuu yidhi wuxuu ahayuu yidhi nin caaqila ninkaani, garasho badan u ahayuu yidhi nin dhalinyaro ah caaqilah u ahayuu yidhi sidaas oo kale. marka sidaas oo kale way maaragtay allahuma callimhu yahu bar alkitaaba, kitaabka bar maaragtay. tafsiirkiisana cabdullahi ibnu cabaas waad aragteen, waa cumda. baabu mataa yasixu samaacu sagiir, mataa goormaa yasaxu uu asaxayaa samaacu sagiiri midka yar maaragtay maqlidiisa. marka waa mabxath xadiiثiya oo maaragtay xadiidku laba siyood ayuu leeyahay, qaab lagu qaato iyo qaab loo gudbiyo. marka culummadu waxay leeyihiin marka la gudbinayo shuruudihii xadiidka saxiixa ah la rabay ayaa la rabaa marka la gudbinayo, oo maala inuu cadli yahay, inuu yahay daabit, sidaas oo kale cadli daabida inuu yahay qofka markuu gudbinayo, oo ogolaadna leh oo maaragtay mukalafa oo muslima oo cadaaladna leh, sidaasaa la rabaa. laakiin markuu soo qaadanayo shuruudihiisa, yani culummadu waxay u badan yihiin markaas uu soo qaadanayo waxa weeye sagiir wuu noqon karaa, xitaa kaafir wuu noqon karaa oo markaas dambe u gudbinayo muslim ah. hadda maalan abu sufyaan oo kale xadiidkiisa markuu islaam uu soo gudbiyey sagiir wuu noqon karaa, marka sidaas oo kale. marka la soo qaadanayo xadiidka hadduu qofku markaa dambe uu sheegayo wixiina hubo, markaasna shuruudihii ay u dhamaystiran yihiin, yani talaqigaas hore looma shardiyo shuruudaha haddaha loo shardiyo maaragtay. wa canhu waxaa laga yiri radi allahu canhu allah ka radn qaala wuxuu yidhi aqbaltu waan soo qaabilay, canhu cabdullahi ibnu cabaas wey, waan soo qaabilay raakiban xaal aan ahay mid korsan calaa ximaarin dameerkaasoo ataanin dhadig ah. marka ximaar labka iyo dhadigka waa lagu ilaaqa, laakiin ataan haddii lagu daro waa dhadig. dameer dhadig ah anoo saaran ayaan soo qaabilay, wal xaal wa ana anigu yowmaidin maalinkaas qad naahaztu aan ku dhowaaday alixtiraama albuluuqa qaangaar, markaana waxaan ku dhowahay qaangaar. oo rasuulku markuu dhimanayay ilaa 13 sano meelahaas ayuu maaragtay jiray. wal xaal rasuulullahi ilaahi rasuulkiisuna yusalli uu ku dukanayo binaa uu ku dukanayo ilaa gayri jidaarin derbi geyrkiis, yani isagoon sutra lahayn ayuu rasuulku ku dukanayey. famarartu waxaan soo maray bayna yaday bacdi safi, safka hortiisa laga wadaa, yadaygaanu safku gacmo ma lahane, amaam bacdi safi, safka qaar hortiisa ayaan soo maray.
وأرسلت وحان دلي الأتان maaragtay dameertii dhadigeed ayaan sii daayay tartacu xaal ay daaqayso iska sii daayay wadakhaltu fi safi safka ayaan galay falam yunkar la iguma inkirin dalika arrinkaas calaya korkeyga macnaha aniga la iguma inkirinoo inaan safkii dhex maray la iguma inkirin marka baabka munaasabada ay ku leedahay waxaa weeye xadiiskan marka uu soo qaatay cabdullaahi ibnu cabbaas oo arrintan ay ku dhacday oo taqriirka ah xadiisku waa taqriir waxay ahayd isagoon qaan gaarin marka qofku inuu xadiidka uu soo qaadan karo isagoo aan qaan gaarin ayaa maaragtay loo daliishanaya maaragtay anigoo ku dhawaaday yidhi ixtiraamka waxaa kaloo culammadu ka qaateen xadiidkan safka aan imaamka wixii ka dambeeya ah in imaamku maaragtay uu sutro u yahay oo maaragtay dhexmaridiisu maaragtay aysan dhib lahayn safka dambe haddii maalan qofku dhankaas oo kale maaragtay usoo gudbay calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu culamada qaarkoodna waxay u daliishadeen mashaacirta iyo xajka markii lagu jiro sutra maaragtay looma baahna mararka qaarkoodna maba suurtagelayso sidaas oo kale laakiin baabka sutrada iyo dhankaasaan ugu tegi doonaa marka halka xadiidka waxaa laga qaadanayaa samaacu sagiir isagoo yar inuu cilmiga maaragtay uu qaatay wey maaragtay oo aan qaan gaarin wa can maxmuud ibn rabiic ninkan aad buu u yaraay maaragtay rasuulka maaragtay saxaabadii aad u yaryareed ahay maxamuud ibnu rabiic waxaa lagu radi allahu canhu alla kala noole qaala wuxuu yidhi caqaltu waxaan gartay oo macnaha xifdiyey weye xafidtu min rasuulillahi ilahi rasuulkiisa majatan ganid oo majaha rasuulka uu ku ganay fii wejhi wejigayga majada waxaa laga wadaa irsaalu lmaai min alfami biyaha oo afka laga sii daayo oo maaragtay biyaha afka ku jiray oo qofka lagu shuba ayaa laga wadaa inuu rasuul waxaan garanayaa uu yidhi ilaa hadda aan xusuustaa ganid uu rasuulku biyo afkiisa ku jira uu ku ganay fii wejhi wejigayga walxaal ana anigu in ibnu 5 siniina 5 sano aan jiro maaragtay biyahaasoo min dalwin dalwi ah marka biyaha dalwi baa lagu soo qaaday rasuulku afku ku shubtay maaragtay weji uu iga shubay marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa markii uu xadiidka soo qaatay inuu 5 sano jiray haddeerna xadiidkii uu maaragtay uu sii sheegay weli waan xusuustaa oo waan xifdisana ka wadaa caqaltu yani xafidtu wey waan xifdiyey oo weli waxaan garaadkeedii waa igu jira anoo 5 sano jira in rasuulku wejiga uu biyo iiga shubay sidaas oo kale marka mudaacabe iyo la ciyaarid inay tahay iyo ducayn iyo barakayn inay tahay oo rasuulku waad ogtihiinoo maaragtay waa la barakaysan jiray barakada marka meel walba ha u diidin rasuulku waa loo ogoliyey maaragtay weysadiisa iyo waxa dhan maaragtay waa lagu kala dafi jiray laakiin cid kale oo ka dambeeyo loo ogol yahay ama maaragtay barakaysiga noocaasa ma jiro maaragtay baabu fadli man calima wacallama dadka wax baray man ruuxii calima bartay wacallama bartayna fadligiisa ayuu u baab yahay can abi muusa waxaa lagu yidhi abi muusa alashcari cabdullahi ibnu qays ayaa la yidhaahdaa can inabiy nabigu wuxuu ku yidhi sal ly slam qaala wuxuu yidhi mathalu ma bacahani allahu alla wuxuu ila soo saaray bihi isaga oo min alhuda hanuun ah iyo walcilmi cilmi ah marka huda walcilmi hadday israacaan culammadu waxay dhahan huda waxaa laga wadaa camalka saalixa ah cilmiguna waxaa weeye aqoonti marka waa labadaasba aqoonti iyo camal saalixa labadaasa khayr lagu gaaraa oo ilaahay labadaas uu ila soo saaray ka mathali kaysin wuxuu la mid yahay roob qayska weliba waxaa la yidhaahdaa roobka markii inta la waayo dhulku baabao abaaru dhacdo qaysku marka waa gargaar moogta iyadoo laxoogaa la iska roon yahay roobka daa qays lama yidhaahdo markii inta la wareero xaalku uu noqdo bariga dhexe roobka la helaa la yidhahdo oo qays noqonayo yani gargaarka degdegtaa noqonayo kamathali lkays roobka ayuu lamid yahay alkathiiri badan asaaba asiibay ardan dhul buu maaragtay ku dhacay wey maaragtay faminhaa ardadii fakaana waxaa ahaaday minhaa ardadii naqiya mid dahiranoo dhul wanaagsan oo carasan ah oo qabilat ilmaaa biyihii aqbashay oo markaa fa ambatat ilkala
daaq soo dhalisay kala marka waa mid qoyan iyo mid qalalan intaba waa lagu idlaaqa walcushba alkathiir walcushba cawsna soo dhalisay alkathiira fara badan marka cushbigu waa kala qayb ka mid a marka waa cadfu lkhaas cala alcaam weliba waxaa cushbiga waxaa la yidhaahdaa markuu qalalan yahay soo dhalisay wa kaanat waxaa ahaaday minhaa ardadii xaggeeda ajaadibu mid maaragtay mid adadag oo maaragtay dhul adag alardu salba alatii laa yandabu minha biyuhu aysa kasii duursayn oo biyihii qabsanaysa amsakat ilmaaa biyaha haysanaysa oo ceshanaysa fanafaca allahu alla ayaa maaragtay ku anfacay biha iyada annaasa dadka fasharibuu way cabeen wasaquu wayna maaragtay waraabeen wazaracuu yani dadkiina way cabeen way waraabiyeen cafwan wasaquu way waraabiyeen way maaragtay wazaracuu waxna beerihiina waa ku beerteen wa asaaba waxa uu asiibay minhaa ardadii xaggeeda daa'ifatan ukhraa qeyb kale inamaa hiya iyadu wax kala mooyaane qiicaanun waa mid bannaan marka qiicaanka waxaa loo isticmaalaa waa meel bannaan mustawiya malsa allatii laa nabta fiiha meelaan uusa ka dhalan oo cusbooley ah biyahana qaadanaysa coosna aan soo saaraynin oon daaqna soo saarin wey maaragtay qiicaan maaragtay qaac ayaa maaragtay uu yahay jamciis qiicaan marka waa banaano waa weyn sidaas oo kale qaac safsafka ma mustawi marka waa banaan siman wey saarta laa tumsiku maan biyo ma celinayso walaa tunbitu kala-an cawsna maaragtay ma dhalinayso yani daaqna ma dhalinayso biyana ma celinayso fakadalika sidaasoo kale u ahaaday mathalu man faquha fi diin illahi ruuxii diinta fahmay oo kale oo wanafacahu uu anfacay maa bacahani allahu tacaala bihi wuxuu alla ila soo diray oo facalima bartay wacallama dadkiina baray iyo wamathalu man lam yarfac dadka aan cid aan korba ugu qaadin bidalika arrinkaa ra'san madaxiisaba aan marnaba isku dayinba khayrkii iyo diintiiba inuu kaga faaidaysto walam yaqbal huda allahi ilahay hanuunkiisana aan aqbalinin alladii hanuunkaasoo ursiltu bihi la ila soo diray marka sida ay shuraaxdu ku fasireen xadiidkan waxaa weeye dadkii waa saddex yani hanuunkii iyo cilmigiiba waxaa laga dhigay roobkaa soo da-ay oo kale roobkii marka saddex dhulow asiibay mid waxaa weeye biyihiina waa gelayaan waxna waa ka soo saaraya marka isaguna waa ku intifaacay maaragtay dadii kalena waa ku intifaacay midna waxaa weeye biyihii waa celinayaa oo dadkii kale ayaa ka faa'iidaysanaya laakiin dhulkii maaragtay ma gelayo midna biyana ma celinayo waxna soo saari mayo marka xadiidku sida ibnu xajar uu leeyahay labada hore waa la israaciyey marka dadka marka waa saddex nooc mid cilmigii bartay oo fahmay oo isaguna ku intifaaco ku camal falay dadkii kalena maaragtay fahamsiiyey waxau la mid yahay dhulkii galay maaragtay biyuhu galeen waxna soo saareen ajaadibta midka uu ku fasiray wuxuu leeyahay waa ruux cilmigii isagu qaatay laakiin fahamkiisa uusan badnaynoo dadkii kale lafdigiisii iyo cilmigii oo tajhiida u gudbiyey oo dadkii kale ay ku intifaaceen isagu faham badan iyo fiqi badan ma lahan cilmigiibuu xambaarsan yahay laakiin cilmigiibaa qur-aankiibaa laga xifdiyey waa macallim oo kale dadkii qur-aanka xifdisiiyey wuxuu baray waxyaabihii asaasiyaadkaayo hoosuu baray cilmigii kaloo badanna muu lahan marka kaasna waa kaasaa lagu fasiray oo labadaba waa u israaciyey xadiidku oo nin walba taagtiisii ayuu cilmigii ka fahmay labaduba waa la ammaanay labadaba markaas ka dambena waxaa weeye cilmigiina qaadan maayo isagu cid kalena wax u gudbin maayo lam yarfac ra'san waxaa weeye maba isku dayinba wey dhegba jaaq uma siinin meesha soomaalidu ka dhahan wey maba isku dayinba kaas weeye midka laleeyahay maaragtay midkaas weeye midka khasaare wey maaragtay midkaas weeye midka khasaare sheekh salim anagu iska wadnaa oo kitaabka
حوغايا بدنا لأنه وهل مالين مركز كسي ودينا والله مركز باب رفع العلم علم كريول كيسة وظهور الجهل جهل جونا مارتي إنه كور نقضه علمي إن لا كرياله ده جهل جينا إنه صوم نقضه أو سبب كجهل وصوم مغنى يبغى علم الآنتوي عن أنس وحلي رضي الله عنه ولا كلام قال حويري قال رسول الله إلى رسول حويري إن من أشراط الساعة ساعدها ساعد على مدى وحكمده أن يرفع العلم علم إلا كرياله ويثبت الجهل جهل أوسقناده ويشرب الخمر خمر جينا لعبه ويظهر الزنا زنا دينا أي ظاهرته زنا دينا إن أي ظاهرته على مدها وحكمده علمي إلا كرياله جهل أوسقناده خمر هذا لعبه مارتي زنا دينا أي ظاهرته أي فافته معناها سيدا أي كولية هاي أي فافته سيدا سكر اللي يرحله marka waxay leeyihiin arrimahan iyo arrimaha xadiidka soo socda ku suganba waa shantii diintu ay ilaalisay ayaa baaba'ay oo ah diintii ilaalinteedii waxay ku baaba'day cilmigii maaragtay oo la kor yeelay naftii xifdinteedana waxay ku baaba'day maaragtay khamrada cabideeda aqligii xifdintiisa ku baaba'ay naftii xifdinteedina waxay ku baaba'day dilka nasabkii iyo cirdigii maaragtay xifdintiisina waxay ku baaba'day zinada marka waxyaabihii yani fawdada in adduunka dhan khalal markaas uu ka jiro li'annahu waxyaabihii la alkuliyaat alkhamsadii dhammeed ayaa isbaraanbartayo xifdu nafsi walmaal iyo wadiin iyo walcaql iyo walnasab cirdi intiiba wax burburinayaa yimid marka adduunka dhan markaas wuxuu noqonayaa marka an yurfac alcilmu cilmiga in la kor yeelo marka culimmadu waxay yidhahaan rafci cilmigu waa laba nooc mid waxaa weeye waa midii uu rasuulka xadiidka cabdullahi ibn cumar noo sheegi doono culimmada la qaado sida hadda zamankan dhacday oo culimmadii waaweynaayo o dhan waa socdeen maaragta nooca kale rafci cilmiga waxa weye isagoo cilmigu yaallo dadku dhaqankiisa inay iska dhaafaan ha leannahu kitaabka isagoo yaalla لأنه يهودي محل ويري ما ركت وراء ظهورهم يكتورن سولا ما دين كتاب كوايس لكن دقن كي كتبين وين أيضا وار من نوع من الرفع العلم جهل إنه سجناده ويشرب الخمر خمرة ما رتي لعبه ويظهر الزنا دون أي ظاهرته وعنه حل قولي أنس رضي الله عنه الله قال حويري ألا أحدثكم يانا إذن ورمين حديث رسول الله يحدثكم أحد بعدي روح أنا يقدم بيوسن إذن شيئين يعني وحو أغاي صحابة رسولك سدح شيء ودعي آنت والأكتين إله عمره ديري مالكي سنة بدي نبي سنة ضعفو يري مركا إلهي ويسيو لبضا هوري تكلنا والرجيني يا ويري مركا أدبو عمري ديري مارت بقول أو صلبي أحيان دوغيو يري مارت عرور وأنو مارت داد كان دلائي داد كسير دلين مركا آنس آد عمري بسوء ديراد marka wuxuu ogaay cid kale marka joogto cilmigan og inaysan jirin xadiis marka cid iga dambeeyda aysan idin waramaynin idin sheegaa sami'tu rasuulullaahi ila rasuulkiisa ayaan wala yaqulu isagoo dhahaya inna min ashraad as-saa'ati saacada calaamadeeda waxa kamida an yaqilla al-ilm ilmigu inuu yaraado wa yadhhar al-jahlu jahligun u kor noqdo wa yadhharu az-zina zinaduna ay muuqato oo ay faafto wa takthura an-nisaa naaguhuna ay bataan wa yaqilla ar-rijaal raguna ay yaraadaan حتى يكون إلى أو كأهاده ل50 امرأة كنتم دمرة القيم الوحيد هل نين أو مامله هل نين إنه مامله كنتم مارة دمرة يعني زمن آخر كوحبضنا أي قتل أي هرج أي وحاس مركو بطنا رجع يا ديلك وبضنا يا دمركو هذانا مركي هربا أيضا في ترى يا أبو رست إلهي بقى رجع كبر نايان أي هذانا رجع ديلك يا أسبابتي مارك أي كو بابي إلهيان أي بدن marka sidaas ayaa dumarku ay ragga maarad uga badanayaan waliba zamanu aakhirka way maarad hatta yakuna 50 imra'a kuntum ila ay u ahaadaan dumara alqayyim mid maamulo way alqaa'im bi amrihinna laga wada alwaahid kaliya hal qof kaliya inuu kuntum dumara mas'uul maarad u ka noqdo maarad ama hatta waxa laga wadaa in dunidu inta fasaado oo jahligii iyo bataan oo cilmiga laga tago ninku intuu rabo iska guursado ها أفرتي كبدا حتى لو الشيء داد مسلمين شيء أنا دوري طبعا قبا
ha sidaas oo kale bal iskaba dhaaf maaragtay wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar hadda waktigan aan joogno yiri waktigaa isagu joogay ayaaba turkumaanta maaragtay boqortooyada laga helaa yiri nin konton naagood qaba ha marka waa wax cajiib afartii laga cabanayay haya marka sidaas oo kale baabu fadl ilcilmi cilmiga fadligiisa can ibni cumar waxaa laga wari radi allahu canhuma allah karam qaala wuxuu yihi samictu rasul lah ilah rasulka sal yaquulu isagoo dhahaya baynaa waqti ana anigu naa'imun aan ahay mid fadhiya utiitu waxaa layla yimid biqadxi labanin yani weel caana ku jiraan ayaa layla yimid ya baynaa goor ana anigu naa'imun aan ahay mid jiifa yani waxaa ru'yada laygu tusay wey maaragtay utiitu waxaa layla yimid biqadxi labanin yani weel caana ah ayaa layla yimid fasharibtu waan cabay xataa inii anigu la araa aan arkayo arraya cokonaanta ama wabaxa yakhruju inuu ka baxayo min adaafiri cidiyahayga ilaa biyihii aan ka wabxay oo ka cokonaaday oo sida aan aad iyo aad biyaha aan u cabay aan cidiyahayga wabaxa ka arkayo uma intaa dabadeed acطaytu waxaan siiyey fadlii wixii aniga iga soo haray cumar bn khadaab ayaan siiyey qaaluu waxay yidhahdeen famaa awaltahu maxaad ku fasirtay ru'yadaas yaa rasuul allah ilah rasuulkiisiwi qaala rasuulku wuxuu yidhi alcilma cilmiga ayaan ku fasiray oo cilmiga aan ka okonaaday oo maaragtay waxa caana aan ka dhergay waa cilmi wixii iga soo harana cumar ibn khadaab aan siiyey marka cumar ibn khadaab yani aad iyo aad waa manqabo aad iyo aad iyo aragta u weyn meeshiisa ayuuna ku sheegi doonaa weliba haddana marka iimaanka laga hadlaayana waa kii rasuulku yidhi isagoo qamiiska jiidaay ayaan arkay isaga iimaanku siduu maarata u weyn yahay baabu lfutya wa huwa waaqifun cala daaba wagayriha baabu lfutya in la fatwoodo oo caalimka uu fatwada bixiyo walxaal huwa isagu waaqifun uu taagan yahay cala daaba daabada dusheeda yani uu daabad korkeeda uu saaran yahay iyo wagayriha isagoo gaari ama saaran ama faras saaran ama dameer saaran qofku inuu fadwada maaragt bixi karo rasuulku sala allahu alay wasalam sidaad ogtihiinba markii uu acmaasha xajka gudanayay si dadka dham ay u arkaan waxa uu samaynayo xataa maaragtay dawaafka mararka qaarkood wuxuu saalnay hal oo maarata si dadku dhammaantood ay u jeedaan wuxuu samaynayo leannahu rasuulku waa kii yidhi maaragtay khuduu canii manaasikakum si looga qaatana meeshu waa meel zaxmo ah dadka inuu ka muuqdo sidoo kalena mashaacirtoo dhan sidaas ayuu ahaa gaadiid inuu saaran yahay ana nebigu sal lla alay slam waqafa inuu istaagay fii xajati wadaac sagootinta xajkeeda ayuu rasuulku istaagay bimana ayuu istaagay linnaasi dadka u istaagay yas'aluunahu iyagoo weydiinaya waxbay weydiinayeen oo hadda waa xajka axkaamtiisa o dhan baa la isweydiinayaa marka halkaas uu istaago fadwadaas iyo jawaabtaas inuu bixiyo daraaddeed ayuu rasuulku istaagay fa ja'ahu rajulu nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi lam ashcur ma aanan fahamsanayn oo ma garanayn fa xalaqtu markaasaan xiiray qabla an adbaxa intaanan gowracin oo waxaa la rabay gowraca inaan sameeyo laakiin hadda waxaan sameeyey xiiriddii gowriciina waa dib mariyey marka maalinkaas acmaasha la qabto waad ogtihiin waa 4 tartiibkeedana kitaabka cumdat alaxkaamkan kusoo sheegnay waxay culummadu ku jamciyaan ran xat marka ramyiga uu horeeya oo jamrat alcaqaba ramyiga nuuntuna waa naxri waa gowraca xatuna waa xalqiga bacduna waa dawaafka ran xat sidaasay ku jamciyaan yani tartiibka ugu fiican oo hadyiga rasuulka sidaas ah waa sidaa in la isugu xijiyo ran xat waa ramyi waa naxri waa xalqi waa dawaaf laakiin ciddii isiseegsiida oo isdhaafida wax dhibaataa ma lahan oo ku soo celin mayo laakiin sidaan ayaa fiican maaragtay faxalaqtu waan xiiray qabla an adbaxa intaanan gowricin faqaala wuxuu yidhi idbax gowra walaa xaraj fajaahu aakhir nin kalaa u yimid faqaala wuxuu yidhi lam ashcur ma aanan garanayn sidaasoo kale weeye fanaxartu waan gowracay qabla an armi lan ramyigaa ugu horreeyey
intaan ramyigii samaynin ayaan gowricii sameeyey qaala wuxuu yidhi irmi walaa xaraj maaragtay tur wax dhibaataa ma lahan famaa su'ila nabiyu nabiga lama weydiinin can shayin shay qudima la hormariyey walaa ukhira la dibdhigay ilaa qaala wuxuu yidhi ifcal walaa xaraj wax dhibaataa ma lahan maalinkaa wax la hormariyey wax la dib mariyey wixii la weydiiyeba wax dhibaataa maaragtay ma lahan marka qofku inuusan ula qasdin ayay culimmadu leeyihiin maaragtay haddii duruuftu keento ama sidaas oo kale waa sidaas oo kale marka xadiiska dhan hadda xaj iyo ka hadli maynee baabka cilmiga qofka caalimka ahu markuu fadwoonayo inay u bannaan tahay isagoo daabad saaran oo meel saaran inuu dadka u jawaabo hadday weliba munaasib tahay oo si dadku u arkaan inay tahay munaasib halkaas ayuu ku hadlaya baabkan ayaan ku dhamaystiraynaa marka baabu man ajaaba alfutya biishaarati alyaddi waalra's baabu man dad ayuu u jawaab yahay ajaaba ku jawaabay alfutya maaragtay fatwadii bixiyey fatwa iyo futya waa isla mid maaragtay biishaarati alyaddi gacanta ayuu ku tilmaamay aw ra'si madaxa in jawaabta xataa tilmaan lagu bixi karo intaas uun kaliya wey can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu canhu ala ka radon an nabiga wuxuu ka wariye qaala wuxuu yidhi yuqbadu alcilmu cilmiga waa la qibdoonaya oo xifdigii diinta halkaa ku baaba'aya wayadharu ljahlu jahligiina wuu soo ifbaxayaa waalfitan fitnooyinkiina waa soo ifbaxayaanoo fitnooyinkana jahliga iyo jilka iyo waxaasoo dhan baa ka mid a oo iyo macaasida waaweyn iyo waxaasoo ka mid a wayakhuru lxarju dilkuna maaragtay wuu badanaya qiila waxaa li yaa rasuulallah ilahi rasuulkiisiyow mal harju dilku muxuu yahay harjigu muxuu yahay qaala wuxuu yidhi rasuulku hakadaa biyadihi hakadaa biyadi laa ba'as harjigu muxuu yahay baa rasuulka la weydiiyey marka qaala wuxuu yidhi hakadaa sidaas ayuu yidhi biyadihi gacantiisa macnaha faxarafahaa wuu qalluciyey macnaha gacantii buu yidhi waa dil camal waa riwaayada muslim oo kale alqatl ayuu ku caddeeyaba in ay dil yahay laakiin hadda maaragtay harjigu muxuu yahay markii la weydiiyey ma qaala wuxuu qaala yani qaaladaanu yani facala waayo sidaas oo kale ma aan soomaalida xataa waa isticmaalnaa sida waxaan masaan dheh alagu leeyahay yani sidaas samey waayo maaragtay qaala wuxuu yidhi macnaha wuxuu dhaha sameeyey wey maaragtay hakadaa sidaanuu yidhi biyadii gacantiisa faxarafaha marka wuu qalloociyey sidaas camal uu yidhi waa mid dil waayo kaanahu waaba isagoo yuriidu doonaya alqatla dilka ayuu maarata ula jeedaa marka harjiga waxaa la yidhaahdaa waa luqat alxabasha oo maaragtay la isticmaalay oo milaano xabashadu dad sahlan maahayn o carabtii oo luqadooda isticmaalay marka meesha luqadoodii ala marka harjiga waxaa la yidhahdaa dagaalka aan ujeedo ka jeedo lahayn oo dadku un la iska dilay sida hadda midka iska socdo kale soomaaliya oo kale marka waxaa laga qaadanayaa qof hadduu su-aal ku weydiiyo haddaad tidhaahdid lama ogolo wey marka waa dhamaatay sidaas oo kale isna wuu fahmay sidaas oo kale marka intaas ayaa laga fahmayaa in lagu jawaabi karo ishaarada wax kale ma ahan laakiin harjiga iyo baabul fitanka ayuu ku sheegi doonaa marka hadda sii gelin mayno can asmaa binti abi bakr waxaa laga wariyey zubayr ibnu cawaam xaaskiisii way maaragtay cabdullahi ibnu zubayr hoy qaalat waxay tihi ataytu caaishata ayaan u imid radi allahu canha allah ka radli noqdee walxaliya iyadu tusalli ay dukanayso faqultu waxaan idhi maa sha'nu nnaasi dadka xaalkooda muxuu yahay yacni habeen waxay ahayd dayixu madoobaaday marka dadkii oo dhan maarata marka dayixu madoobaado de rasuulka hadigiisana waa ahayd inuu fasaxo xitaa marada isagoo jiidaya inuu tago leanna waa calaamad weyn oo maaragtay ilaahay awooddiisa ku tusinaysa marka sidaas oo kalea dadkii idiraab iyo inuu galay aragtay markaasi waxay tiri maa sha'nu nnaas dadka maxaa ku dhacay fa ashaarat ila samaa war cerka fiiriy tiri cerkay ishaartay dayixu inuu maaragtay madoobaaday soo arki maysid wey maaragtay fa ida annaasu dadkii waaba iyagoo qiyaamun taagan oo dukanaya salaadii dayax madoobaadka ayaa maaragtay la dukanayay macnaha sida saxdaana waxaa weeye rasuulka waktigiisi khusuufulqamar kaliyaa dhacay qoraxdu ma aysan dhicin maaragtay waana waqtiyadaas u dambeeyo maaragtay wiilkiisi u dhintay waqtiyadaas maaragtay ay ahayd fa ashaarat ila samaa cirkii ku ishaartay yani dayixii baa madoobaaday kuma dhihine sidaasay ku tiri cirka eeg maaragtay fa ida annaasu dadku waaba iyagoo qiyaamun taaganoo
يعني شراحdu waxay leeyihiin maaragtay maadaama iyadu qolqolka ku dhagan ay deganeed masjidka yani meel bay ka fiirsay kulley dadku inay dukanayaan ayay maaragtay aragtay masaajidka dhexdiisa oo qolkeedu iyada masaajidka ku dhaganay qaalad waxay tiri subxaan allah maaragtay caaisha tiri ilaahay baa maaragtay hufan faqultu macnaha waa wax weyn oo maaragtay istaajib weeye maaragtay wax la yaab la wey qoraxda ayna dayxu madoobaad qultu waxaan yidhi aayatun aayad mi calaamad weyn miyaa oo maaragtay fa ashaarat bira'sihaa madaxeeday markuu ishaartay ha ay tiri ha sidaas oo kale ha waa qof xoogaa maaragtay aad u malaysid inay ay tahay panic oo maaragtay arrintan dhacday la ama ka naxsan haddii wax lagu weydiiyo adigu waxoogaa yara naxsan marka hadalba kama gaartid moogta ishaarada ugu jawaabaysaa sidaas oo kale maaragtay u egtay xaalkeedu fa ashaarat bira'sihaa madaxeeday ku ishaartay ay nacam ha sidaas tiri maaragtay aayad weyn miya faqumtu waan istaagay waxaa hadlaysa maaragtay asmaa waan istaagay xataa calaani ilaa uu iga kor noqdo algashu xataa tajallani riwaayo kalaa dhahaysa ilaa daboolkii uu iga kor noqdo oo madowgii dayixu uu baxo ay maaragtay dayixii u jeli noqdo caddaado oo iftiinkiisi uu si caadiya noqdo fajacaltu waxaan gudugulay asubu calaa ra'si madaxayga inaan ku shubay almaa biyo madaxan biyo ku shubaya faxamid allah marka rasuulka ayaa maaragtay khudbeeyey faxamid allah ayuu mahdiyey النبي فحمد الله عز وجل النبي وفعلك رسولك يا الله مهديي وأثنى عليه وأثنى ونا أماني الله سبحانه وتعالى أيو أماني مركز فحوري ما من شيء مجرى ولم أكن أنا أهين أريته إلا يتسيي إلا رأيته وأنا أركي في مقامي هذا ميشيدان حتى الجنة جنة والنار نارته فوحي إلي أنا وحالي وحيودي أنكم أذنك تفتنون إلا إذن في النار وفي قبوركم قبورتنا مثل أو قريبا من فنة المسيح الدجال يعني مثل فنة المسيح الدجال ساسوكل مثل مركز دي لها من تم يلانيس مثل فنة المسيح الدجال مسيح الدجال في الذي سوكله أو أمسه قريبا من فنة المسيح الدجال مسيح الدجال في الذي سميد له مركز وقبرك أيالنكو في النينية وحياة البرزقة ما نكت أدونكو إلى شن مرحلة قفكو مرو عدم يهي مرو الدنيا جوجو ما ركتي علوش مرو كجر عفوا مرو الدنيا جوجو حياة البرزق هي حياة الآخر أنت سوي مارك مركب حال يقال وحال لي ما علمك قرأت شاهد محيط بهذا الرجل إن كان أتقرنيست إن كان أتقرنيست محيطه كان محط كو قرنيسان إن كان مركب رسولك على وضع فأما المؤمن الروح المؤمن كهاي أو الموقن قفك يقيني فيقول حليه هو إساق محمد وهي رسول الله إلى رسولك سوي جاءنا بالبينات آيات عدد أيونولي والهدى هنون فأجبناه وان أجبني واتبعناه وان رعني هو محمد ثلاثا هو محمد ونبي محمد سد حجر أساس ليه فيقال مركا وحال ليه نم صالحا سيحو هذه وناكسن نم نوم العروس ساتو نين أروس سيدي سيوكال فرحسن شو ساحد أساحو قد علمنا وحان أغاني إن كنت إناد إهات لموقنا به مد يقينسا أو هبه ووددي سمارة الراعة ودغنكي سمارة كددالة وأما المرافق مرافقي أو المرتاب كيشا كساناي فيقول حوليه لا أدري قرن ماي ها لا أدري سمعت الناس ذات كيوان مغلي يقولون الشيء إيقو وحشيقي فقلته أنه هو إسك الشيء وحبا قرن ماي سياد رادد علماء وايلي يراهدين توحيدك وحا شردي علم وحا شردي مارتي محبة وحا شردي يقين وحا شردي مارتي إخلاص وحا شردي الكفران بما يعبد من دون الله وحيابها صورنا شروطها أيها كجرتا marka qofka haduu iska yiraahdo xataa macnaheedaba uu sagaranayn qaaran garanayna la yiri baadiyaha markii la tagay tabliiqa soo ogaaday la ilaha illa allah muhammad rasuulullah macnaheeda dadan garanayna jiraan marka waa khatar arintaas marka xadiiska waxa loo baabaystay ishaara oo Aisha laba jeer ishaara ku jawaabtay oo marna macnaha madaxeedii ku ishaartay marna cirkii ishaartay rasuulku sidoo kale sallallahu alayhi wasallam harjiga markuu fasirayay gacantiisu ku ishaaray waa dilka sidaas oo kali wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk